hay-adda dalka Norway u qaabilsan sharcisiinta qaxootiga iyo dejinta dadka ajaanibka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano UDI ayaa sheegtay in dhalashada waddanka Norway iyo sharcigii ay ku lahaayeen ay kala noqdeen ilaa iyo 12 qof oo Soomaaliya iyadoo baaritaan xooggan uu ciidanka boolisku ku daba taagan yahay ilaa iyo 100 qof oo kale asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya balse hay-addan ay ku eedeysay inay ka been sheegeen halkii ay ka yimaadeen markii ay qaxootinimo weydiisteen dalka Norway. nin sarkaal oo u hadlay hay-addan ayaa sheegay in baaritaan badan kadib la ogaaday in dad Soomaalinimo sheegtay sharcina lagu siiyay dalka Norway ay ka yimaadeen dalal darisla dalka Soomaaliya sida dalka Kenya, Ethiopia iyo waliba uu yiri dalka Djibouti. ma aysan ahayn xilli fog markii nin Soomaaliya oo dalkan ku noolaa muddo aad u fog lagu celiyay dalka Djibouti halkaasi oo asal ahaan sida la sheegay ka soo jeeday dalka Norway ayaa tirahan Soomaalida ku nool ay gaarayaan ilaa iyo 36 kuwaasi oo u badan dad dhalinyaro soo galay 10 sano ugu dambeeyay dalkan waxaana ay dadka Soomaalida halkan degan ay walaac ka muujiyeen warbixinada ay hadda soo saartay ee lagu eedeynay dadkaasi Soomaalida iyadoo dadka halka yimi ay u badan yihiin dad Soomaali oo soo maray dalka darisko in badan ku soo noolaa kadibna u soo raadiyay inay dalka Norway ka helaan nolol ka duwan tan ay ku haysteen dalalka dariska ay u soo qaxeen. حسن سعيد حسن راستا SNTV نرويج.